dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Xasan Tahani ee degmada Dilaa oo ah dugsiga ugu horeeyay guud ahaanba gobolka Awdal galay taamka shahaadiga ahaa dugsiyada hoose kaalinta koowaad ee gobolka Awdal sidoo kalena ku jiray 10kii dugsi sare ee ugu sareeyay Soomaaliland ayaa maanta waxaan halkan kula kulanay maamulaha dugsigaasi isla markaana waxaan weydiinay waxyaabaha sababay inay gaaro dugsigiisaasi guusha inta leeg sidoo kalena waxa uu maamuluhu u diray hambalyo iyo waliba sidoo kale bogaadin ardayda ka baxday dugsigaasi marka hore Ilaahay waan mahadnaqayaa marlabaadka waa dugsiga Sheekh Xasan Tahani oo kaalinta koowaad galay gobolka Awdal guud ahaana kaalinta lixaad galay kulay guushaasi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa sababay kulay horta Ilaahay baa noo suurageliyay alxamdulillah waxa kale oo sababay dadaal aanu galinay ardayda iyo macallimiinta yalo oo joogta xitaa galika dambe aanu mararka qaarkood aanu wax u dhigi jirnay ardayda kulay arrimahaas sababay iyo cid kasto naga caawisay arrimaha sidii aanu kaalinta ku gaadhay waa sanadkii ugu horeysay sideedaad oo noo fariisto waxayna hayeen ardaydu ma badnayn waxay hayeen lix arday lixdiibana way soo baxeen darajo fiican oo keenay Ilaahay baa mahadle kaalintaana gaarsiiyay waxaan mahadnaqayaa cid kasto ka qayb qaadatay inaan halka gaadhno oo ay ugu horeeyaan Sheekh Xasan Tahani oo dugsiga gacanta ku haya hay'ado badan oo naga caawiyay sida hay'adda Araha oo kale hay'adda UNICEF iyo Save the Children iyo Germany hay'adahaas oo dhan oo naga caawiyay ayaan u mahadnaqaynaa dugsigu wuxuu hiigsanayaa inuu halka uu maanta joogo meel ka sarreeyay insha Allah inuu gaadhano waan hiigsanaynaa Shucayb Maxamed kaan Shucayb